وحر النبي حسن عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر مركو إمامك منبرك أو فوره ملائكة ددك اللي استيني كلا قرية ترتمياشا كتاب كودا إلا أظن يانا يقول خطبة دي لقيسانا بل قارمين ونمادنا هنو إن بدنا ددك كمي وحيوان خطبة دي وبراروتين إنه كلفين جمعها هي أحكام تيري آلات هذا كهذا الله dad badani waxay ku soo beegnaa waqti aan xabad baadiina jirin waqtigii liiska bal laabay goormaad ku qormaysaa tartamayaasha markaa waxa laga yaabaa dad badan inay yiraahdaan wali khudbadii lama bilaabin meheradiisa wuxuu xidhayaa markay malaa'igtu laabeenba wixii ay qorayeen ee aan xabad beeray xabadigaagii toona jirin ha noqonin qof calaf laawa cuudka waa la iska heli saacad laba saacadood ka soo horeey si aad tartamayaashan miduna aad ugu darmato waxa kale runtii xusud badan xusuustan waxa uu nabigu ugu dhiirigelinay calayhi salaatu wasalaam dadka inay dadku la yimaadaan caawan la taaban karo oo fi dalika falyatanafasil mutanafisun khayrka ha u tartamaan buu ilaahay dadka tartamaya waxa tartamayaana waa dadka marka waa sida loo soo kala horeysaa daraadeed ba qofkii habsamay la xagga dambe ha maro oo dadka ayuu jiirin hadaanu helin meel banaan oo kuwa hore ay dayaceen markaas tijaaradaha la sii dhigayay iyo alaabta la dhigayay iyo iyagu tartamayaasha kuma jiraan ee waxa tartamaya waa dadka insa loo ogaadana waa wax sid mudan maalinka khasaa'iskiisa waxa kamid ah saahorada inuu soo xusnaa waa maalin ilaahay uu u diyaariyay oo ugu deeqay ummadan ummadu dheeraadiye badan bay leedahay maadaama cimrigeedu uu yar yahay maadaama fadligeedu uu badan yahay waa maalin ummadii hore loo soo bandhigay yahuudi iyo nasaarado la yiri weynay oo ay weydaarteen ama ogaan bay u weydaarteen ma culimada qaarkood say fasirayaan way seegeen calaf laawayaal bay noqdeenoo jumcadii bay daydeenoo way weydaarteen markaasay sabti iyo axad ku kala hagaageen marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ka xusaya in ilaahay ummaddan uu ku beegay wixii ay kuwa hore ka halaabeen jumhuuru ahli sunnati waljamaaca waxa ay qabaan siduu ibnuqayim raximahullahu fii zaadi ilmacaad kaga warramayo in arwaaxdu dadka mu'miniintu ay soo dhowaato oo dadkii dhintay arwaaxdooda iyo nafahooda ay qubuurta ku soo dhowaadaan fii yowmi aljumuca iyadoo mar walba la isu diyaarinayo inay suuragaltay in suurtii la afuufo oo kuwa ifka jooga iyo kuwa aakhira mar soo wada baxaan iyadoo la isku soo dhowaynayo fayacrifuuna zuwaarahum waman yamuru bihim wayusallimu calayhim wayalqaahum fii dalika alyowmi akthar wadalika alyowm akthar min macrifatihim bihim fii gayrihi min alayaam marka siday maalmaha kale dadka soo siyaaranaya u garanayeen salaamaya si ka badan ay maalinta u garanayaan oo arwaaxdooda ay qubuurta ugu soo xaadiraysa maalinkan isaga khasaa'iskiisa kasta daraadeed kol hadii arwaaxdooda ay qubuurtii ku soo xaadiraysa ku soo dhawaanayaan waxa aboon siyaarada aqaaribta iyo inuu qofku xabaashi soo booqan karo maalmahaas oo soo ducayn karo iyaguna aad bay u sii garanayaan dadka soo booqanaya si ka badan sidii maalmaha kale ay u garanayeen maalinka khasaa'iskiisa waxa kamid ah inuu sabab noqon karo xusnul khaatima inuu ilaahay khaatimada u hagaajiyo qofka ku beegma geeridiisu ay ku beeganto qofku isuma haya arrintan laakiin waa waafajin ilaahay nibaa loo sheegay khaatimada waa waqtigan ku wada buu muxuu ku wadayaa ma isagaa isu haya qofku hortuu dhimanaya isuma hayo ilaahay baa u haya subxaana wa tacaala markaa min fadli illaahi hadduu qofku ku beegmo inuu jumcada dhinto waxaa loo rajaynayaa khaatimo wanaagsan iyo cadaabulqabriga inuu ilaahay ka nabadgeliyo qof muumin ahoo khayr leh hadduu ahaa xadiid saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw leylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr qofka dhinta maalinka jumcada qofka muslima buu nebigu yihi gaal maaha qofka muslimka ah ee dhinta maalinka jumce ama habeenka jumce ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa balaayada qubuurta ka dhacda iyo cadaab alqabriga hadduu cadaab alqabriga ilaahay ka nabadgeliyana kii dambena waxaa loo rajaynaya inuu ka nabadgalo khasaa'iskiisa waxaa ka mid ah inay culimada ku fasireen inuu yahay hada alyowm shaahid waalcamalu mashhuud واتفق جمهور المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة يشهد على كل عامل بما عمل فيه إلهي وحده وشاهد ومشهود خلقي لبدا سنبو قيبسية مد مرخاتية هي مد لغو مرخاتية مركة جمعة هو مرخاتي عمل كي قفكنا وكا مرخاتي كعيا كي مالك جمعته كذا كي لا يعابد إيا كي كلا
sidoo dhulku u marxaati noqdo ayuu waqtiguna u marxaati kacaya marka khasaa'iska iyo fadaa'ilka uu maalinkan leeyahay bay kuwaasi kamid yihiin iyada oo wax badan aynaan sheegin saadaradeed inaynu ka faa'iideysano oo fursadda inaan iska dayicin aad iyo aad bay u muhiim tahay iyadoo aynu ogsoonahay saacatul ijaabi qiimaha badnaana inuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam weliba axaadiidta iyo culimmadu waxay u badan yihiin inay ku jirto wakti dadka qafladdu ay ku badantay oo waktiga gabalku uu sii dhacayo ee qoraxdu ay sii dhowdhowday ee maqribka loo diyaar garoobayo saacatul ijaabana waktigaasu ayaa loo rajowayay inuu ku beegay اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا المطر ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين مطرنا بفضل الله وبرحمة الله بالنوء كذا ولا بكوكب كذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة